بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعشر كيني لباد كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي fuqahadii masaariduu ka mid yahay oo maaragtay mashaayikhdii weyne kibaaru mashaayikh alimaam albukhaari muusa bnu ismaaciil atabudaki abu salama qaala xadahanaa abu cawaana magaciisa meelo badan buu inku soo mari doonaa abu cawaana alwadaax ibnu cabdillaahi alyashkuri annahu qaala xadahanaa muusa bnu abi caaisha abu caaishahaas magaciisa lama garanayen laakiin haddee waa ninkaas imaamkaa muusa bna abi caaishata alhamdani mowlaahum albasri culamadii basruu ka mid ahaa qaala xadahanaa saciid bnu jubayr taabiciga jaliilka ahay weye min aclam الnaasi bالtafsir talamiid ibn cabaas dadkooda ugu aqoonta badnaay tafsiirku ka mid yahay xajaaj baana dilay marka qoraadii markay ku baxeen buu dilay dadkii uu qabtay oslaay buu ka mid ahay radia allahu canh asagoo da-diisa aada u weyneen 45 sano jira ayaa is dilay saciid ibnu jubayrin radia allahu canh raximah اllah can ibni cabaasin ibni cami rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam cabdullahi ibn cabaas fii qowlihi tacaala asagoo fasiraya ibnu cabaas ayadda qur'aanka ah laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih laa tuxarik lisaanaka sidaa unbuu tarkiibka yahay carabka ha dhadhaqaajinin bihi ay bilqur'aani qur-aanka markuu soo degayo carabka ha dhadhaqaajinin isdeji litacjala bihi inaad degdegto oo qur-aanka u degdegto darteed yani nabiga calayhi waalihi الsalaatu wassalaam markii uu waxyiga soo dego os qur-aanka jibriil la soo degaya qur-aanka loo akrinaya inuu hori u barto darteed usan ka fakanin buu u degdegayo os intaad jibriil akrinaya uu ka daba akrinayay isdeji baa laleeyahay sug markii uu jibriil dhameeyey kadib aqri qur-aanka dhegeysa marka hore laa tuxarik ha dhaqaajinin lisaanaka carabka ha dhaqaajinin bihi ay bilqur'aani litacjala bihi inaad degdegto darteed qaala wuxuu yihi ibn cabaas kaana rasuulu llah rasuulka allah wuxuu ahay salى اllahu alayhi wasalam yucaaliju kii kala kulmo min atanziili shidatan shiduu kala kulmi jiri mucaalaja waxaa waaye shayga oo dhibka iyo shidada aas kala kulantaa mucaalajo la yidhaha cilaajka dabcan waxaa la yidhaha qofka markaas xanuunsan yaha oo la daaweynaya cilaaj baa la yidhahaa luqada carabiga marka mucaalaja macnaha waxa way kaana yulaaqii shidatan min atanziil sidaas oo kale wey qur-aanka soo degidiisa xoogaha shiduu kala kulmi jiray inuu ka fakaduu ka baqahayey culays badanna waa la kulmaya waan soo marnay wa kaana wuxuu ahay nabiga salى اllahu alayhi wasalam mima yuxariku ay kathiira ma yuxariku shafatayhi mima yuxariku ay kathiira ma yuxariku shafatayhi in badan buu bishimaha dhaqaajin jiray qur-aanka markuu soo degaayo shidana waa kala kulmi jiray inuu ka fakadana waa ka baqaya bishimahood dhaqaajanaya inuu aqriyo darteed faqaala bnu cabaasin wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cabaas fa ana uxarikuhumaa bishimaha ayaan idin dhaqaajinhayaa labada bishimood lakum adinka ayaan idin dhaqaajin kamaa kaana rasuulu llah rasuulka allah sidii uu ahay salى اllahu alayhi wasalam yuxarikuhumaa bishimaha sidii u dhaqaajinhayey sidii uu faruuryaha nabiga u dhaqaajinhayay calayhi الsalaatu wassalaam ayaan ana idin tusin on idinkugu dhaqaajin ibnu cabaas ma joogin meesha suuradahan iyo ayadahan ay kusoo degayeen leanna ibnu cabaas intaasan nabigii soo hijroonin calayhi الsalaatu wassalaam 3 sano ka hor ayuu dhashay marka waktiga ay suuradahan soo degeen suuradahanna waa suuraddan weliba si gaar ahaan suuradihii qur-aanka soo degay ugu horreey wey aad bay ugu horreysay dhalashadiisi waxaa laga yaabaa inuu nabigeena ka maqlay sal اllau alay wasalam ama saxaabi kale ka maqlay saxaabiga wixii asaga markaas goobjoog aheen oo laakiin nabiga ka wariya asagoo nabiga ka maqlay unba ay lamid yihiin calayhi الsalaatu wassalaam leanna ama saxaabi kale uu ka maqlay ama nabigu ka maqlay calayhi الsalaatu wassalaam wuxuu leeyahay fa ana uxarikuhumaa cabdullahi ibnu cabaas waan dhaqaajinayaa bishimaha lakum adinka ayaan idin tusina on idin dhaqaajinaya kamaa kaana rasuulu llah alla rasuulkiisa sidii uu ahay yuxarikuhumaa salى اllahu alayhi wasalam yuxarikuhumaa
faruuryaha siduu u dhaqaajin jiray ayaan idiin tusinaya oon idin dhaqaajinaya. wa qaala saciidun, saciid ibnu jubayrna wuxuu yihi raximahu llah, saciidna wuxuu yihi ana uxarikuhumaa, ana waan dhaqaajinayaa bishimaha kamaa ra'aytu ibna cabaasin, ibnu cabaas sidii aan ku arkay yuxarikuhumaa asagoo dhaqaajinaya. xadiidka marka waxaad noqonaa soomahade musalsal bisifa ama bilficli. almuhim sidii ibnu cabaas aan ka arkay ayaan ana u dhaqaajin buu yihi. faxaraka shafatayhi, saciid bishimaha ayuu dhaqaajiyey raximahu llah. faanzala allahu tacaala, alla wuxuu soo dejiyey subxaanah, laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih. nabiga allow ha dhaqaajinin carabkaaga. carabka dhaqaajintiisa bishimaha la dhaqaajiyaa ka dhalana miyan iska jirtaa dabcan, laakiin qofka markuu wax akrinayay gaaliban carabka hadduu dhaqaajiyo bishimahana waa dhaqaajiyaa, laakiin xuruuf oo shafateynka aan shaqo ku lahayn waa iska jirtaa. laa tuxarik lisaanaka, carabka ha dhaqaajinin bihi, qur-aanka ha ku dhaqaajinin litacjala bihi, inaad degdegta darteed. ina calaynaa korka annaga weye jamcahu, qur-aanka inaan jamcino oon xabadkaaga kugu kulmino sida ibnu cabaas ku fasiri doono. wa qur'aanahu, inaad aqrisid, aqrintiisa ood aqrisid ood xifdisid oo qalbigaaga ku sugnaado ood aqrisid, annaga korka annaga weye isdejiyaa degdegin. qaala wuxuu yihi cabdullaahi jamcuhu lahu, kulmintiisa oo ilaahay u kulmiya nabiga sal اlه alay slam fii sadrika, jamcuhu kulmintiisa qur-aanka oo lahu linabiyi fii sadrika, laka sidaasa fiican, jamcuhu laka, lahudaas waa sax ma noqonaysa. kulmintiisa oon kuu kulmina fii sadrika, xabadka oon kugu kulmina, oo wataqra'ahu aada akhrisa markaas, jamcahu wa qur'aanahu, sidaas wey. faidaa qara'naahu, marka aan akrino oo qur-aanka akrintiisa ay dhammaato oo jibriil u akriya oos dhameeya, faatabic qur'aanahu, akrintiisa raac maara sidii uu jibriil u akriyay adigana uu akri. qaala wuxuu yihi fastamic lahu, faatabic qur'aanahudi wuxuuba kugu fasiri ibn cabaas, macnaha fastamic lahu, qur-aanka dhegeysa, wa ansit, dheg raarici, ee sidii iyada si aad ugu akriso u dheg raarici. huma ina calaynaa, korka annaga ayay ahaatay bayaanahu, caddayntiisa, macnihiisa inaan ku caddayna, ayad walba meeshii munaasab ay u tahay iyo suuradda ay la xiriirtay in lagu sheega. ayadda marka ay soo degto nabiga wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wassalaam, suurad hebel oo suuraddii magaca lagu sheegay, ayadda meeshaas iyo meeshaas gadaasheeda ayadan dhiga. ayadaha mogtahay si tartiibka hadda ay yihiin uma soo degin. marka annagaa kuu bayaaninayna wixii laga rabo oo camalfal iyo fahmi iyo tartiib meesha la dhigaya, wax walba annagaa caddaynayne. huma ina calaynaa, korka annaga wey bayaanahu, caddayntiisa inaan kuu caddayna. huma ina calaynaa an taqra'ahu, inaad akhrisaa korka annaga ood fahamta. fakaana rasuulu اllah, alla rasuulkiisa wuxuu ahay salى اllahu alayhi wasalam, bacda dalika, markaas inta ka dambeysa, idaa ataahu jibriilu, markaad jibriil u imaado, istamaca waa dhegeysan jiray, akhriska uu qur-aan ka daba akrin jiray waa joojin jiray. faida اndalaqa jibriilu, markii uu jibriil tagana, qara'ahu nabiyu, nabiga ayaa akrin jiray salى اllahu alayhi wasalam, kamaa qara'ahu jibriil siduu u akriyey ayuu nabigu u akrin jiray. marka allah ayaa u ballan qaaday inuu xabadkiisa qur-aankan si gaar ahaan ummadda dhan buu ilaahay u fududeeyo, taysiir rabbaani buu leeyahay. waxaa waye walaqad yasarna alqur'aana lidikr, ilaahay baa takfiif sameeyey in la xifdiya. wax muhim si kasta u yihiin sida qur-aanka loo xifdinayo ma jiraan adduunka korkiisa. si gaar ahaana nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam markuu jibriil u imaado qur-aanka ku dul akriya, waxaa waye isla markaas isagana asigoo waxba ka fakanin ayaa akrinaa nabiga os xifdinaa, macnihiisana waa fahma, meeshii munaasabku aheedna waa garanaa. marka tartiibsaha la yihi deg dega jooji, arrintaa waa arrin korka annaga. faida اndalaqa jibriilu, jibriil markuu tagana qara'ahu nabiyu, nabiga waa akrin jiray salى اllahu alayhi wasalam kamaa qara'ahu. huma qaala alimaamu الbukhaariyu raximah اllah, xadahanaa cabdaanu, cabdaan waa laqab, magaciisa waxaa la yidhahaa cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu jabala alayli, cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu jabalat alayli. qaala akhbaranaa cabdullaahi, cabdullaahi haddaad arata cabdaan oo cabdullaahi ka warinaya haddaad arata mar walba
waa cabdullaahi ibn lmubaarak ogow imaamka faqiihi xaafidka muxadidka mujaahidka ahay wey. cabdullaahi ibn mubaarak nin turki buu ahaayo maxaa laga dhahaa asalkiisa turki u dhashay cajiiba. asxaabtiisa intay fadhiisteen baa yidhaheen bal wax khasla oo khayr oos cabdullahi ibn mubaarak samaynin aan raadina, hadday jihaad tahay, hadday sadaqo tahay, hadday tahay maxal yacni ay camal. marka cabdaan haddaad aragta marka magaciisa waa cabdaan, waa laqab. cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu jabala ayaa la yidhaha alayli. ninka uu cabdaan haddaad aragtana ninka uu ka warinayo cabdullaahi uu yidhaha cabdullaahi ibnu mubaarak weye. qaala wuxuu yihi akhbaranaa yunusu, yunus waan soo marnay, yunus ibnu yaziid alayli, isagana waan soo marnay min ahbaati asxaabi zuhri. can الzuhriyi, zuhri haddi ibni shahabki aan soo marnay xali weye. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. حاء سند كيبو كوريج إمام البخاري يعني التحول عن السند. قال وحدث بخاري بامركه وحليه وحدثنا بشر بن محمد ننكا ليرها يا نورمي بشر بن محمد العبد أبو عبد الله الكوفي مشايخ دي طبقadii sare oo mashaayikhdii imaam albukhaari buu ka mid yaho taasicadaheed. hiqa xaafid inuu yahay aimada isku waafaqsan yihiin. bishr bnu moxamed alcabdi alkuufi abu cabdillaahi. qaala bishr wuxuu yihi akhbaranaa cabdullaahi. marka mutaabaca taama weye, labadooda sheekh sheikhoodii waa mid soo ma arkeysa. yani cabdaan iyo bishr bnu moxamed waxay iskala warinayeen cabdullaahi ibnu mubaarak. qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yunusu. sanadka waa kii horo. wa macmaru can الzuhriyi naxwahu, macmarna zuhri uu ka wariyey xadiidka yunus oo kale. yani wuxuu ku leeyahay xadiidka cabdaan cabdullaahi ibn mubaarak yunus can الzuhri dariiqa waa kaas. kadalika bishir laftiisa xadiidka waa wariyey, cabdullaahi ibn mubaarak buu ka wariyey, yunisna waa ka wari yunis uu kasii wariyey. waa sanadka kii hore wey laftiisa markii bishir laga reeba oo cabdullaahi iyo yunus. laakiin wuxuu leeyahay bishir macmarna xadiidka waa xadiidka yunus meesha yeello oo lafdiga aan kuu keeni doono. laakiin macmarna asagana waa wariyay xadiidka oo zuhri buu ka wariyay xadiid asaga lamid oo la macnaa. sidaasuu ku leeyahy wa macmarun can zuhriyi naxwahu, sidaas uu ujeedaa. qaala wuxuu yihi marka zuhri akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi can ibni cabaasin. arrin yar oo iska in la ogaado laga maarmaana waxa weye dabcan hadda musطalax baabkiisa ma joogna, cilmu alxadiid diraayatan baabkiisa hadda in badan ma hayna, laakiin riwaayatan un baan hadda ku jirnaa. imaam albukhaari ma kala saaraya uma kala agtiisa akhbaranaa iyo xadahanaa ma u kala duuna. ahluxadiid badan way kala farqiyeen, laakiin imaam albukhaari akhbaranaa qofki inuu yihah inuu xadathana yihah isku mid weye. sidaa darteed waxaa laga yaabaa laba raawi midkood inuu akhbaranaa xadiidka ku wariya, midna xadathana uu ku wariyo, oo labadaba sheekhi bukhaari uu yahay. dhib maayn leanna bukhaari ma kala saaray. qaala akhbaranii cubaydullaahi ibnu cabdillaahi, cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutbata bni mascuud alhudali ibnu akhi cabdullaahi ibni mascuud min kibaari taabiciin way. marka zuhri haddii awsaadi taabiciinta ama kuwoodii xoogaa dabaqadii hoose uu yahay, haddana ninkan waa sheikhiisii cubaydullaahi dabaqadii weyneed oo taabiciinta uu ka mid yahay. cabdullaahi ibni mascuud walaalkii ayaa dhalay. cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutbata ibnu mascuud, cabdullaahi ibnu mascuud walaalkii wiilkiis weye ayaa dhalay ninkaas cubaydullaahi ibni cabdillaahi ibni cutbata ibni mascuud can ibni cabaas. cabdullaahi ibni cabaas buu ka wariyey annahu qaala inuu yihi kaana rasuulu llah, alla rasuulkiisa wuxuu ahay salى اllahu عalayhi wasalam ajwad annaas, dadka ninka ugu waxbixin badan bu ugu deeq badan. nabigu wax la soo aliyay ma celin jirin. maa qaala laa qadu ilaa fi tashahudihi markuu zaynulcaabidiin ku tilmaamahayey. dee nabiga ilaahay baa maaratay waxba ma soo celin jirin ilaa waxaan sharci ahayn ma hayne. kaana rasuulu llah, alla rasuulkiisa wuxuu ahay salى اllahu alayhi wasalam ajwad annaas. horta nabigiisi ahaantiisa ayaa wuxuu ahay kaana askha nnaas, dadka ninka ugu sakisan
oo uga deeqda badan buu ahay wa kaana haddana nabiga wuxuu sii ahaa calayhi الsalaatu wassalaam kaanada ismigeeda rasuulka wey ajwada maa yakuunu fii ramadaana inta uu yahayna waktiyaalkiisana wuxuu u deeq badnaay waktiga ramadaan oo waktiga ramadaan iyo waktiga kale isku mid mahe nabiga xiina yalqaahu jibriilu markii uu jibriil la kulmo ayuu aada usii deeq badnaay hoos wax usii bixin badnaa dee dadka ahlu khayrka ahlu salaax markii lala kulmo deeqda mogtay haddana khayrka waa sii badanayeen ramadaanka waktigiisana waa wakti ay haddana kasii daran marka aad buu usii bixin badnaay jibriil markuu la kulmo wa kaana nabiga wuxuu ahay salى اllahu alayhi wasalam yalqaahu kii la kulma jibriil fii kuli laylati min ramadaana habeen walba oo ramadaanna waa la kulmi jiray fayudaarisuhu wuxuu la akrin jiray alqur'aana qur'aankuu la akrin jiray fayudaarisuhu ay mudaarasa mufaacala min aljan dabcan mufaacala waa imaadaa ficilka wasanka inuu ku imaado uuna ahaada maaragtay laba dhinac ahayn saafara oo kale yani saafara iyo kalimaad sidaas oo kale way dhacdaa oon badnayn laakiin gaaliban faacala haddaas aragto laba dhinacay ka imaada fayudaarisuhu waa la akrin jiray alqur'aan qur'aankuu la akrin jiray nabiga sal اlه alay slam jibriil buu la akrin jiray fala rasuulu llah rasuulka allah salى اllahu alay wasalam ajwadu bilkhayri khayrkii kii uga degdeg badan buu ahay min ariixi اlmursalati dabaysha lasoo diray dabayl markaa imaada oo roob wada qabowgeeda iyo khayrkeeda waa caam ummaddaas gaara meel walbuu gaari sidaasuu ahay nabiga sal اllahu alay wasalam markuu jibriil u imaado ramadaanna la joogo qur-aankana la akrinaya habeenadu ugu deeq badan yahay ayuu ahay nabiga salى اllahu alayhi wasalam isagoo mar walba deeq badnaay xadiidka meeluu kusoo noqon doona insha allah arki doona ثuma qaala alimaamu الbukhaariي raximah اllahu baabun qaala raximah اllah xadaثana abulyamaan alxakm ibnu naafic qaala akhbaranaa shucayb can الzuhri maro badan bukhaari asagoo le ad arki doontaa xadaثanaa abulyamaan oon qof kale magaciisa sheegaynin maro badan xadaثanaa alxakm ibnu naafic buu dhihi doonaa oon kunyadiisa asan sheegaynin maro badan marna haddana waa isku daray abulyamaan alxakm ibnu naafic kibaari mashaayikhihi buu ka mid yahay qaala raximah اllahu tacaala akhbaranaa shucayb ibn abi xamza naafic haddaad arata mar xakm ibn naafic ama abulyamaan haddaad arata gadaashiisa shucayb uu jooga fahuwa shucayb ibnu abi xamza abu xamzahaas dinaar baa la yidhahaa xims magaalada la yidhaha oo suuriya ku taala ayaas maaratay culamadeedii muhiimkeedu ka mid ahaa alximsi wey ibn abi shucayb ibn abi xamza dinaar baa la yidhaha abu xamzahaas can الzuhriyi maxamed ibni muslim maxamed ibni shihaab maxaa la yidhahaa maxamed ibni zuhra kulli waa la dhihi karaa anahu qaala inuu yihi akhbaranii wuxuu ii sheegay cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cutbata bni mascuud ninkii xadiidka hore aan kusoo marnay oo cubaydullaahi ibnu cabdillaahi uu iska yidhi abtirkiisa oo kaamilo halka kuu sheegay alhudali waa zuhri mashaayikhdii uu aada cilmiga ugu qaatay buu ku jiraa oo kibaaru taabiciinta ahaayeen liannahu taabiciintu cilmiga ka qaatay ka badan zuhri asxaabtu cilmiga ka qaatay ana cabdاllahi bna cabaas akhbarahu cabdullahi bna cabaas ayaa u sheegay cubaydullaahi bna cabdillaah ana abaa sufyaan sakhr bna xarbin ninka la yidhaha abu sufyaan oo la yidhaaha abu sufyaan ibna xarbin akhbarahu inuu u sheegay qisadaa dhirirka badan buu noo keeni doonaa marka abu sufyaan bani cabdimunaaf weye waxaa weye sakhr ibna xarb ibna umayat ibna cabdishams ibna cabdimunaaf weye afar bay soo kala tirsanayeen nabigii asaga calayhi الsalaatu wasalaam waa ilma adeer yani waxaa weeye sakhr asaga sakhr weye xarb ibna umaya ibna cabdishams saddexay soo tirsanayeen saddexay soo kala tirsanayeen ibna cabdimunaaf nabigana waxaa dhalay cabdullaahi ibna cabdilmuطalib ibnu haashim saddexdaanu soo tirsan saddex bay soo kala tirsanayeen qisadiisi iyo cajaa'ibteeda waan arki doonaa abu sufyaan maalinka maka la furinaya unbuu soo islaamay habeenkeedii hore ayuu soo islaamay qaa'id oo hogaamiya oo maxaa la yidhaha khadiira ayuu ahay oo maaragtay bani cabdishamsi ah waa amiira almu'miniina mucaawiya aabihii weye ibnu cabaas wuxuu leeyay marka waxaa ii waramay
أبو سفيان أن أبا سفيان بن حرب أخبره وحو شيء أن هرقل أرسل إليه وأصدري في ركب من قريش سفر أو قريش أصغو كجرا أيو هرقل أصدري خبر قصة waxay ahayd gadaalna waxbaa laga fahmi doona oo kasoo noqon doona hiraqla waa boqorka ruum reer yurub markaas boqorkooda hiraqla ayaa la dhihi jiray caasimadiisana xims bay ahayd waktiga isaga dhulkaas suuriya oo shaam muddo dheer dimashqa caasimadu ahayd laakiin xims markaas way ka weyneed dimashq way ka weyneed waana caasimadii hiraqlana way ahayd marka hiraqle waa boqorkii reer rum magaciisa ayaa hiraqle la dhihi jiray laqabkiisana qaysar baa la dhihi jiray boqor melig meesha ay leeyihiin ama madaxweyne meesha haddaan naga dhahna qaysar bay dhihi jireen ayaga sidii farisba boqorkooda ay u dhihi jireen kisra oo masr ay u dhihi jireen boqorkooda fircawn xabashada u dhihi jireen boqorkooda najaashi iyo wixii lamid ah marka qaysar baa la dhihi laqabkiisa u ahay laakiin magaciisa waa hiraqla boqorkii reer rum weye wuxuu leeyahy abu sufyaan aniga oo safar ah ana hiraqla arsala ilayhi waa u soo diray fii rakbin min qurayshin safar oo quraysha wa kaanuu waxay ahaayeen tujaaran bishaami dad tujaar ahoo shaam jooga ayay ahaayeen oo shaam imaadeen tujaar jamcu taajirin tujaar faajirin fujaar oo kale wey tujaar oo shaam jooga ay ahaayeen fi lmuddati waktigii allatii muddadii kaana rasuulu llah rasuulka alla uu ahay salى اllahu عalayhi wasalam maadda fiihaa kii la sulaxtamay abaa sufyaana iyo wa kufaara qurayshin abaa sufyaan iyo kufaarti quraysh waktigii sulaxa nabiga uu la galay oo 10 salax sulxulxudaybiya ay dhacday waktigiibadi ay ahayd faatowhu hiraqla ay u imaadeen wahum ayagana biiliya iliya meesha la yihah waa beyt almaqdis ayagoo joog qisada sharqeeyaha dambana xadiidka way ka noqon doontahay waxay ahayd sidaan arki doona qeybihiis dambe hiraqla oo boqorkii reer ruuma yurub oo dhan boqorkoodii an waxaa ku soo duuli faris dhul ay ka qabsadeen si ilaahay qur-aan ku sheegay gulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna farisaa soo duuleen oo majuusa qoladan oo ahlu kitaab ay dhul weyn ka qabsadeen aad buu ugu murgi markii muddo kadib ninkii faris oo dhulkii ruum qabsaday hogaamiyihii kisra ayaa waxaas ka daahay boqorkii kisra inuu u taga khabar buu u dirsaday macluumaad buu ka doonayay inuu u imaado ka daahay si ugu daahayba go-aan buu gaaray inuu maxaa la yihah ninkii meesha ka bedelan oos nin kale ku bedelan sirtii buu ogaaday hoggaankii meeshii joogay markuu sirta ogaaday wuxuu hoosta kala xiriirsaday madaxda waa dhib badan yihiin heraqlu hoosta kala xiriirsaday oos leeyahay ninkan khiyaanadan u wadaa inuu maarata dhulkiisa qabsado heraqla darbuu ku qaaday waajibiyey markii nabiga caamka sanadkii uu maaragtay calayhi الsalaatu wassalaam xudaybiya sanadkeedii meeshii sanadkii oo cumrat اlqadaa ayayna dhici doontaa arrintaas ayada marka waa qabsaday dhulka markuu ka qabsaday hiraqla shukran lilah nin ahlu kitaab uu ahay ayaa wuxuu ku nadaray inuu beytkii ilaahay oo beyt almaqdisa iliya waa beyt almaqdes macnaa beyt ullahi waa iliya yani israa'iil iyo mika-il iyo waxaas ay leeyihin soo ma arkin iltaas macnaha waa allah beyt ullahi way marka iliya marka in uu beytka ilaahay u lugeeya asagoo kabalaana u lugeeya isku nadari hiraqla shukran lilahi maaqaana masaxa maaragtay wuxuu diin sax u haysta arrintii buu ku nadaray laakiin nimankaana de madaxdooda way u dadaalayeen waxay sameeyeen maadaama madaxweynahoodii boqorkoodii uu nadri arrintaas ku nadri xims ilaa beyt almaqdes dhulkii ay maalintii inta la socdoba waxay sii dhigayeen gogol bay ku fidinayeen mokeed bahalkan gogashaan dhulka la dhig ayay ku fidinayeen kabalaan buu socdaa laakiin wuxuu ku socdaa gogashii korkeeda ilaa beyt almaqdes
inuu beytka ilaahay ziyaarto darteed. markuu meeshii imaaday oo beyt almaqdis imaaday ayaa waxaa u imaaday risaalo nabiga uu soo diray sala allahu alayh wasalam oo melika khasaan uu soo diray, ayaas melika khasaan heraqle u soo diray. risaaladii baa isagoo beyt almaqdis joogto u imaaday. risaaladii markay u imaaday horta intaan risaaladan waa imaani doontaaye, arrintan markay dhacdo meeshii jooga nin wuxuu ahaa heraqla, dhinacna kutubta yaqaana, dhinacna munajim ahoo xidigaha aad u yaqaana balaayadooda, xidigaha fiiriyey. xidiguu fiiriyey, waxaa u muuqday oo u soo baxay raggaa rag waxay khubara ah, yacni dad oo qof jaahila madax kama ayn dhiganaynin sida dunida islaamka maanta haysatoo kale. waxaas arkay marka xidigaha markaas fiiri dadka isgudaaya khitaankii boqorkiisa sida xadiidka aan ku arki doono oo daahiriyo adduunka qabsaday. munajimnimada tii bay tusisay, aad buu u murgay. marka yurub isma gudaan, arrintii waa la murgi. dadkiisi way arkeen inuu murugsan yahy. waxa kuga dhacay baa yidhaheen, waxaasaan arkay baa layidhi ayuu yidhi. waxay yidhaheen waxaas ha ka murgin, wax isgudayo adduunkan joogo dhulkan jooga yahuudaa ka jirta. yahuudna waa kuu yaroo annaga xukunkeena hoos imaanayin, waa soo amras bixini, waa soo qabanayna eber aan ka dhigayna bartooda dambaba lama arkay maxay mulkigooda soo qabsanayin, mulkigooga xagee iska imaadan. ma ogeen ayaga inay carab isgudi. khitaanka waa sunnadii nabi ibraahim aleyhi waalihi الsalaatu wassalaam. risaaladan markay u imaaday oy warqadan u imaaday, warqadii nabiga ayuu yihi ninka keeni melika khasaanna qolyo carabay ahaayeen oo boqorkan hoos jooga, siday daba dhilif u yihiin maanta u yihiin ba ay u ahaayeen. ninkii keeni buu yihi heraqla, ninkan inuu isgudayo in kalea lasoo fiiriyey. waa la tagay, maradaa laga qaaday. ina de looga cabsanayo male, waa nin risaalo wada, maradaa laga qaadiy inuu gudan yaha la arkay, oo gudan yaha la yihi. wuxuu wareystay heraqla carab inay isgudayin in kale, carab way isgudaan baa la yihi. marka dadkiisi buu diray, wuxuu yihi wixii ayaga oo dhulkan jooga meel dheer iyo meel dhow halii keena meelahan jooga. abu sufyaan oo marka safar hogaaminayo ilaa 30 meelahaas gaaraysa, oo markaas ayada ghaza joogaan, sidii riwaaye ay caddaynaysa ghaza joogaan ayaa lasoo helay. asagii iyo safartiisi dadkii la joogeen waa lasoo kaxiyey. kolley xoolo un wax la jira waa kasoo tegay, dadka uura lagu safrayo waagaas waa lasoo kaxiyey. marka heraqla loo keenay, arrintii buu ka warrama marka abu sufyaan iyo su-aalihiisi iyo su-aalihiisi khatartoodii iyo wixii uu ku jawaabay ayaan arkaynaa. marka waana soconaynaa. wuxuu leeyahy ana abaa sufyaan bna xarbin akhbarahu, wuxuu u sheegay cabdullahi bna cabaas ana heraqla arsala ilayhi waa u soo diray fii rakbin min qurayshin, asagoo safarey oo quraysha ku jiro. wa kaanuu safareydaasna waxaa ahayn rakbiga jamcu rakbi raakibin weye, saxbin saaxibin saxbin oo kale wey, wاrakbu asfala minkum. wa kaanuu waxay ahaayeen tujaaran bishaami, tijaaro ayay u joogeen shaam. fi lmuddati waktigii alatii muddadii kaana rasuulu اllah, rasuulka alla uu ahay salى اllahu alayhi wasalam, maadda fiiha ay saalaxa fiiha abaa sufyaana wa kufaara quraysh. waktigii hudnada la galay abu sufyaan iyo gaaladii quraysh, nabiga sulxa uu la galay sulxulxudaybiya, waa noo imaani doonaa, meesheedu nooga imaani doonaa in sha allah sidii uu dhacay sulxaas. waktigaas ayay ahayd muddadii dhexdeeda. fa atowhu way u imaadeen heraqla, walxaal hum ayagana heraqli iyo dadkiisana biiliya beyt almaqdis ay joogaan. fadacaahum waa u yeeray fii majlisihi, meeshii madaxtooyadii heraqle beyt almaqdis uu ku lahay buu ugu yeeray. wa xawlahu xaal gaararkiisana ay yihiin cudamaau ruum, ruum madaxdeedii, culamadoodii, asaaqifadii, wasaradii, raggii yacni baarisiinta ahay ayadooy gaararka ka fadhiyaan. fadacaahum waa u yeeray heraqla abu sufyaan iyo raggiisii buu u yeeray fii majlisihi, xaal uu ku sugan yahay makaanu fadhigiisi, meeshii madaxtooyadii uu fadhiisanayay, guriga madaxda. wa xawlahu xaal gaararkiisana ay yihiin cudamaau ruum, yani darafkaas ayaa maarata cudamaau ruum a mubtada muaqara, ruum madaxdoodii iyadooy la joogaan.
ثuma dacaahum waa u yeeray wa dacaa bitarjumaanihi tarjumaankiisina waa u yeeray tarjumaan hade waa qofka luqadan luqada kale u gudbinaya labada luqaba garanayo weye oo labada luqad isku fasiray tarjumaan turjumaan waxa doontaba dheh faqaala hiraqla wuxuu yidhi ayukum qofkiineebaan aqrabu u dhow nasaban xagga nasabka bihada arajul ninkan yaa ugu dhow dadka aladii yazcumu anahu nabiyu ninkaan nabinimada sheegtay oo maka ka soo baxay dadkiinaan meesha joogo qofkee ugu dhow xagga qaraabo ahaan ayukum qofkiineeba aqrabu nasaban xagga nasabka uga dhow bihada arajuli ninkan aladii ninka yazcumu sheegaya annahu nabiyun nabi inuu yahay ninkaan sheeganaya faqaala abu sufyaan wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ana aqrabuhum nasaban anaa nasabka uga dhow wuxuu ley abu sufyaan qof bani cabdimunaaf oon aniga ahayn safarta lamaba soconin anaa madax ka ahaa anaana bani cabdimunaaf ahay marka qof kale oo bani cabdimunaaf oon aniga ahayn meesha ma joogin buu yidhi riwaayad kale siduu ku caddeeyey anaa uga dhow buu yihi nasabka muxuu u weydiinaya ninka nasabka uga dhow dadkan waxbuu wareysan rabaa laba arrimood buu u weydiina mar waye nasabkiisuu weydiin doonaa nabiga sal allau alay wasalam marka maadaama ninka ugu dhowaay uu yahay nasabkiisa been kama sheegay marka labaadna waa ugu xog agaalsanaan karaayo waaba ninkii ugu qaraabasanaayo xogtiisa inuu dadka kale waxay ka ogeyn inuu ka ogyaha dhici karaysa taa darteed buu u weydiiyey ninkan waa nin khadiira su-aalihiisana khatartana waa arki doonaa abu sufyaan wuxuu leeyahay maa ra'aytu adkaa min hada alaqlaf yani qolof qabahaas qof ka dekisan weligay ma arkin buu leyay su-aal wii weydiiyey wax ka khatarsan wuxuu yihi ayuhum aqrabu nasaban faqaala abu sufyaan wuxuu yihi ana aqrabuhum nasaban faqaala wuxuu yihi udnuuhu mini iisoo dhaweey ninka nasabka uga dhow waqaribuu asxaabahu dadkiisa kalena asxaabtiisa kalena soo dhaweeyu yihi fajcaluuhum ka yeela cinda dahrihi dushiisa gadaasheeda gadaashiisa fadhiisiya wejiga ay iska horkeenin huma qaala wuxuu yihi litarjumaanihi ninka hadalka u tarjamay buu ku yihi qul lahum waxaa isku tiraa dadkan meesha fadhiyaan inii saa'ilun haada ninkan ayaan su-aalo weydiinaa abu sufyaan ah can hada arajul ninkan hadda soo baxay oo nabinimada sheeganaya an su-aalo ka weydiina ee fa in kadabanii been haddaad ii sheega fakadibuuhu ku beeniye marka wejigiisa waa ka soo jeeday wuxuu ka baqay haddaas wejigooda iska hor jeeda beenta uu sheegayo inay maaratay beenaad sheegayo inay kala hor imaadi waayaan buu ka baqay maadaama uu kasii jeedo maogtay qofka wejigiisa markuu kaasii hor jeeda waa ka sarigan waxaasan ka sarigateen wuxuu yidhi haddaas been sheega oo ninkaan aan su-aalo ka weydiina been ka sheega beentiisa ku beeniye hadalkiisa ku beeniye abu sufyaan waa arki doonaa been waa iska ilaalina laakiin sidaa darteed iskagama ilaalina wuxuu leeyahay riwaayaadka qaar wuxuu ku leeyahay waan ogaay haddaan hadal beena sheega xataa inay igu beeninayni waan ogaay laakiin abu sufyaan maan hebel been uu sheegay in la yiraha intaasaan ka baqayay waan arki doonaa yani waa wax cajiib ah yani waa nin madax ah marka abu sufyaan baa been sheegay in laga naqliya intaasaan iska ilaali buu leeyahy subxaana allah faqul lahum waxaa isku tiraa inii saa'ilun haada ninkaanaan su-aalaya can hada arajuli ninkaan soo baxay ee fa in kadabanii been haddaad ii sheega fakadibuuhu ku beeniye wuxuu yihi abu sufyaan fawallaahi lowla alxayaau xishood haddayan ahayn min an ya'thiruu am an ya'thuruu athara ya'thiruu wa ya'thuru inay taa dhici karaysa calaya inay iga naqliyaan haddayan ahayn kadiban been lakadabtu canhu waa ka been sheegi lahay buu leeyahy abu sufyaan baa shalay been sheegay oo meeshaas beenaad ka sheegay in la yidha anna nin madaxaana on beenta iska ilaalinayo oo been in beenaad sheegaa la yidha aan ka baqaynin waxaa waye been waan sheegi lahay buu leeyahy leannahu nabiga ma jecla waa ka hor imaadsan ayagaba sida abu sufyaan u necib yahay u necib yahay nabiga sala allahu alayh wasalam asagana dadka asaana uga dhowba fawallaahi lowla alxayaau xishood haddaasan ahayn min an ya'thuruu inay naqliyaan oo calaya aniga ay iga naqliyaan kadiban been lakadabtu canhu nabiga been baan ka sheegi lahay huma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahay awala maa sa'alanii waxaas i su-aalay wax ugu horreeyey canhu nabiga xiggiisaas iga su-aalay wax ugu horreeyey wuxuu ahay an qaala inuu yidhi reerqra hadalka uu yihi wuxuu ahaa
wax ugu horeyn kayfa nasabuhu fiikum nasabkiisa ka warramay ma nimaa nasabkiisa caynay in adeerkiis weye marka xaqiiqadana wuu ogyahay oo nabiga de kaana min ashrafi innaas nasaban nasabkiisa bal ka waran nasab oo hooseeya yaa iska imaaday mise reerka uu ka dhashay dadka uga nasabka wanaagsan buu ka imaaday kayfa nasabuhu nasabkiisa bal ka waran fiikum dhexdiin qultu waxaan idhi buu yidhi huwa ninkaas nabinimada sheeganayay duu nasabin nasab mid u saaxiib weye fiina dhexda annaga waa ninka nooga nasabka fiican buu yidhi xagga abtira markay noqoto iyo nasabka ninka nooga wanaagsan weye wuxuu u su-aalay asaga caddayn doono qaala wuxuu yidhi hiraql fahal qaala miyuu ku hadlay haada alqowla hadalkan minkum idinka xaggiina axadun qof ma ku hadlay qad u weligiis qablahu asaga ka horreeyey yacni qof haddaan ka horo dhex dadkiina oo nabinimo sheegtay oo nabi aan ahay yidhi maliinka arka dhexdiina oo maxamed ka horreeyey fahal qaala miyuu yidhi haada alqowla hadalkan oo nabinimada minkum idinka xaggiina axadun xaggiina xaal uu yahay axadun qof qadu weligiis qablahu asaga hortiis yacni axadun minkum wey macnaha laakiin sifada mawsuufkeeda oo nakira hadday kasoo hormartay maxay noqoni xaalay noqoni fahal qaala haada alqowla qowlkan miyuu ku hadlay minkum xaalu idinka mid yahay axadun qof qadu weligiis qablahu asaga ka horo qultu waxaan idhi buu yidhi la maya wax nabinimo sheegta dhexdayna laguma arkin weli haddaan ka horo muxuu u weydiiya saas sheegi doona qaala hiraqle wuxuu yidhi fahal kaana miyuu ka mid ahaay min aabaa'ihi dadka asaga dhaleen min melikin boqor ma ahay oo wax boqor ah oo dadka dhaleen melig ma ku jiri qultu waxaan idhi buu yidhi la qof boqor oo melig ahay oo aabayaalkiis ka midi ma jirin nasabkiisa unbaa wanaagsanaa qaala wuxuu yidhi hiraqla fa ashraafu nnaasi dadka kuwooda madaxda ah miyaa yatabicuunahu raacayiin am ducafaa'uhum mise masaakiintoodii dadka tabarta yar baa raacayiin sababtu uu yihi asagaa caddayn doono ma dadka madaxdaa dad ininka raacaan mise dadka masaakiinta raacaan fa ashraafu nnaasi dadka ashraaftooda iyo madaxdooda dadka jaaha u saaxiibka ah iyo madaxtinimada ayaa yatabicuunahu raacayiin am ducafaa'uhum mise dadkooda liita xagga adduunya ahaan iyo aragta ahaan faqultu waxaan idhi buu yidhi bal ducafaa'uhum dadka ducafadaa raacayiin qaala wuxuu yidhi hiraqla ayaziiduuna may badanayiin am yanqusuuna mise waa yaraadaan dadka raaceen ma yaraanayiin mise waa badanhayaan qultu waxaan idhi buu yidhi bal yaziiduuna way sii badanayiin qaala hiraqle wuxuu yidhi fahal yartaddu ma ka soo noqonaa axadun qof minhum ayaga ka mid a ma ka soo noqonaa sakdatan lidiinihi diintiis intuu u caroodo qof iskaga soo tagaa ma jiro oo iskaga kasoo ridoobaya oo diinta moxamed ka soo baxaya sala allahu alayhi wasalam fahal yartaddu ma soo noqonaya axadun minhum qof ayaga ka mid a sakdatan lidiinihi naceeb oo diintiisa uu nacay ma ugu soo baxa bacda an yadkhula fiihi diintiisa markuu gala kadib qultu waxaan idhi buu yidhi la maya ma dhacaysa taas qaala hiraqle wuxuu yidhi fahal kuntum ma aheedeen tattahimuunahu kuw ku tuhumaysataan bilkadibi been ma ku tuhumaysan jirteen been ma sheegi jiri maaya inuu been low yahay oos been sheegay ma ku tuhunsaneedeen markiisa hore qabla an yaquula intaasan sheegin maa qaala hadalka uu sheegay intaasan hadalkan ku hadlin been ma ku tuhumaysan jirteen oo wax been oos umalayn jirteen ma jirto beenaad sheegay iyo waxaas ma ku haysateen qabla an yaquula intaasan ku hadlin maa qaala hadalku yihi qultu waxaan idhi bu yihi la maya wax la sheega lama yaqaan hadal uu hadal gelin kara male qaala wuxuu yihi hiraqla fahal yaqdiru ballanta ma buriyaan ballantaas la dhigitana indhex marta ma buriyaan qultu waxaan idhi buu yihi abu sufyaan laa horta ballanta ma buriye wa naxnu annagana fii muddatin muddo ayaan ku jirnaa oo sulax ah oo minhu asaga xaggiisa muddaa noo taal oo naga dhexaysa laa nadri ma ogin maa huwa faacilun fiiha muddadaas waxaas nagu samayn doono ballanti ma nagu burin doona mis nagu burin doono ma ogin laakiin ballan burin haddaan ka hor kumaanan baranin abu sufyaan hadalkiisa arag wa naxnu fii muddatin muddaan ku jirnaa minhu asaga xaggiisa muddaan kaga jirnaa laa nadri mana ogin buu yihi maa huwa faacilun fiiha muddada wuxuu nagu samayn doono qaala abu sufyaan wuxuu yihi walam tumkinnii iima suura gelin kalimatun kelima udkhilu fiiha shay-an kelima aan jawaabteeda shay geliya gayru hadihi اlkelima halkan kelima waxaan ehelon wax yar dhexgeliya iima suura gelin buu yihi jawaabaha kale
su-aal go-an weye su-aasha hadday noqoto qofkaa ma dhinti mise waa nooli waa tegi soo maaha waa nooli ama waa dhintay jawaab intaasoo kale wey laakiin meel aan wax ku qasa kelimadan waxaan ahayn oo wax yar dhexgeliga waa ii suurageli weyday buu yiri walam tumkinnii ima suuragelinin kalimatun kelima udkhilu fiiha shay-an shay aan gelinayo fiiha gayra hadihi lkalima kelimadan waxaan ahayn oon wax dhexgeliya ima suuragelin qaala wuxuu yihi heraqla fahal qaataltumuhu ma la dagaalanteen ninka dagaal mayn dhex mari qultu waxaan ihi buu yihi nacam waan la dagaalanay qaala wuxuu yihi fakayfa kaana qitaalukum iyaahu dagaalkaas la dagaalanteen sidee buu ahay fakayfa sideebaas kaana ahay qitaalukum dagaalkiina oo iyaahu asaga aad la dagaalanteen sideebaas ahay qultu waxaan ihi buu yihi alxarbu dagaalka baynanaa wa baynahu annagii asaga dhexda annaga sijaalun waa kala ridisha sijaal yani macnaha marna yanaalu mina waa naga gaaraa oo waana laayaa waxbuu dhib uu noo geystaa wananaalu minhu annagaan dhibaan gaarsiinaa waa noo kala dhexdaan marna waa jibinaa marna waa najibiyaa wey alxarbu sijaal maalinkii yowmu uxud waa saxaabta ay laayeen gaalada dad badan oo gadaal ugu imaadeen abu sufyaan waa kii hadlayay maxamed manooli abubakar manooli cumar manooli haysaa oo kale markuu weydiiyey wuu lahay maaragtay yowmun biyowmi bedr walxarbu sijaal hadal saasoo kale u yihi maarata sijaal macnaha waxaa la yidhaha sajliga waa wadaanta horta sijaaltanka marka waxaa weeye dadka markay ceelka wadaanta shubanayiin ninkan wadaantiisa waa ridanaa waa la soo baxaa kan kalena marku kan la soo baxayo uu ridanaa waa la isdaba marsadaa marka waa isdhaafsi weye marka waa isdhaafsi sijaalka macnihiisa caynkaas weye alxarbu si baynanaa sijaal waa baynanaa wa baynahu sijaal waa kala ridisha yanaalu mina waa naga gaarayaa wananaalu minhu asagana waan ka gaarnaa qaala wuxuu yihi heraqla famaadaa yamurku waxas idin farana maxay yihin noo ii sheega qultu waxaan idhi buu yihi yaquulu wuxuu leeyahy ucbud llaha waxdah ilaahay keligiis caabuduna leeyahy walaa tushrikuu bihi shay-an cidna waxba cid kale cibaadaha siinin oon alla ahayn hade nabi maxamed duli maalintaan baa ahayd cid kale ilaahay ha garab dhigana cibaadadiisa watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaalkiin waxay ku hadlayeen iskayga taga tan waa xoogaa noo ceebayna macnaha waxaan uga adkaatay weye cudurdaar buu naftoodu raadina aabbayaalkayn iyo hadalkoodii inaan iskaga haajirnoon tuurno way nuga adkaatay camal wey marka aabbayaalkiin waxay ku hadlayeen ka taguuna leeyahay ee ilaahay keligiis caabuda waya'murunaa wuxuuna farayaa bisalaati wasidqi wasadaqati riwaayaadka qaar wey waalcafaafi waasilati salaad iyo sidqi iyo sadaqa run waxbixin iyo run dhowrsanaan xumaan iyo zana iyo xaaraan laga dhowrsanaado iyo dulmi wasilati xariirin qaraabadoo la xariiriy nabi maxamed wuxuu la yimaade waa kan waa in og yihiin laakiin ma ogola hiraqla 10 su-aalood buu su-aalay abu sufyaan 10 su-aalood su-aalay wixuu u su-aalay buu hadda uu sheegaa marka waa kan jawaabihiisa faqaala wuxuu yihi hiraqla litarjumaani ninkii hadalka u fasirayay wuxuu ku yihi qul lahu waxaas ku tirahaa abu sufyaan sa'altuka waxaan ku weydiiyey can nasabihi nasabkiisa ayaan ku weydiiyey fadakarta waxaad sheegtay annahu duu nasabin nasab mid u saaxiib inuu yahay fiikum dhexdiina inuu nasab ku leeyahay fakadalika arusulu rususha waa noocaas tubcathu waa lasoo bixiyaa fii nasabi qowmihaa dadkeeda iyo qabiilkeeda cidda ugu nasabka wanaagsan baa rususha laga soo bixiyaa horta su-aasha sidaasaan ku weydiinaye tan meel qabsa ninkan kutubtii u ka akriso maaha nin ahlu kitaab weeye waa nin cilmili waa nin taariikhi yaqaana marka rususha waxaa laga soo bixiyaa buu leeyahy dadka reerkaas uga nasabka wanaagsan fakadalika arusulu rususha waa sidaas tubcathu waa lasoo bixiyaa fii nasabi qowmihaa qowmkeeda ku uga nasab wanaagsan baa laga soo bixiyaa waa mid wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaala axadun qof ma ku hadli oo minkum axadkaasoo minkum idinka in ka mid ah hada alqowla hadalkan oo nabi aan ahay ma yidhi fadakarta waxaad sheegtay allaa inaasan qof dhahay hadalkaas jirin faqultu waxaan isiri buu yihi low kaana axadun qof hadduu ahaan lahay qaala hada alqowla hadalkan ku hadlay qablahu asaga hortiis laqultu waxaan dhihi lahay rajulun nin wey ya'tasii ku dayanayay biqowlin qiila qablahu hadal hortiis la yihi unbuu ku dayanayay dadkaasuu ku dayanaya wax jira ma jiraanan isdhihi lahaa oo sidaasaan u tiirin lahaa laakiin waxaad ii sheegtay
wax hortiisa hadalkan ku hadlayba inayn jirin marka taana been kama suurobaysa wey. laqultu waxaan dhihi lahay buu yihi haddaas ninkaas jiri lahaa rajulun huwa rajulun nin wey ya'tasii ku dayanaya biqowlin hadal ku dayanaya qiila qabla hortiisa la yiri nabinimada sidaas u sheegtaan dhihi lahaa. su-aashii saddexaad wasa'altukum waxaan ku weydiiyey hal kaana min aabaa'ihi min melik aabayaalkii boqor ma ku jiri baan ku weydiiyey fadakarta waxaad sheegtay alla aabayaalkii boqor inaas ku jirin baad sheegtay faqultu waxaan idhi buu yihi low kaana axadun axad hadduu ahaan lahay qaala fadakarta qultu waxaan idhi falow kaana min aabaa'ihi aabayaalkii hadduu kamid ahaan lahay min melikin boqor hadduu ku jiri lahaa qultu waxaan dhihi lahaa rajulun huwa rajulun waa nin yadlubu raadinaya mulka abihi waa nin mulkiga boqortooyada aabihiis raadsanaya si uu ku gaari la oo loo diiday marka boqortooyada aabihiis oo raadsanaya baan dhihi lahaa. marka taana waa caddaatay inaas aabayaalkiis boqor aheen oo hadda nin boqortooyo raadsanaana inaasan ahayn waa caddaatay. rajulun nin waan dhihi lahaa yadlubu raadinaya mulka aabaa'ihi boqortooyada aabayaalkiis. wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum ma aheedeen tattahimuunahu bilkadibi been ma ku tuhumaysan jirteen qabla an yaquula maa qaala hadalkan intaasan sheeganin hadaladiisi kale oo caadi oo dhexdiin ah been ma ka sheegi jiri oo ma ku tuhmaysan jirteen fadakarta waxaa sheegtay allah inaayan been aasan ku tuhmaysan jirin ma sheegi jiri ma inaad ku tuhmaysan jirin xataa faqad acrifu waxaan ogahay buu yidhi annahu asaga lam yakun inaasan ahayn liyadara alkadiba beenta kii ka taga cala annaasi dadka inuu been u sheegay inuu ka taga oo wayakdiba cala allahi been ilaahayna ku been sheega wax suuragalay maahin buu yihi waan ogahay buu yihi qof inuu dadkana been u sheegin oo dadka been aasan u sheegaynin ilaahayna been u sheegan wax suura ka been sheega wax suuragalay maahin buu yihi taasna waa arrin kale oo cajiiba. faqad acrifu waan ogahay buu yihi waxaan garanayaa annahu lam yakun inaas ahayn liyadara kii ka taga alkadiba beenta cala annaasi dadka been inuu u sheegay inuu ka taga oo wayakdiba uu been sheegay cala allahi ilaahayna ka been sheegay inayn suuragal lahayn. wasa'altuka waxaan ku weydiiyey ashraafu nnaasi dadka madaxdooda miyaad tabacuuhu raaceen am ducafaa'uhum ama dadka tabarta yar oo masaakiinta iyo ducafadaa raaceen fadakarta waxaa sheegtay ana ducafaa'ahum itabacuuhu inay masaakiinta yihiin wax raacaya wahum ducafadana atbaacu rusuli rususha dadka raacaan waa ducafaduu yihi dadkan madaxtinimadoodii iyo mulkigoodii adduunyadooda ay ilaashanayeen dadka rususha raacaan waa ducafaduu yihi maarata caddahay arrinta wahum atbaacu rusul. wasa'altuka waxaan ku weydiiyey ayaziiduuna ma badanayiin am yanqusuuna mise waa yaraanayiin dadka diintiisa galayiin fadakarta waxaad sheegtay annahum yaziiduuna inay ziyaadayiin wakadalika sidaas og waye amru liimaani iimaanka amarkiisa xataa yatima ilaa aska taam noqda iimaan waa ziyaada mogama nusqaamaye ummadda haddaa iimaan dhex gaara iimaanka waa soconaya ilaa aska meel ka gaara oo iska taam noqda. wasa'altuka waxaan ku weydiiyey ayartadu ma ridooba oo ma ka soo noqonaya axadun qof sakdatan lidiinihi diinta ilaahay carow diintiisa carow uu qaba ma u soo noqona oo diinta ma ka soo noqonaya bacda an yadkhula fiihi markaas gala kadib fadakarta waxaad sheegtay allah inaasan qof soo noqonaya jirin wakadalika aliimaanu iimaanka waa sidaas xiina tukhaalidu markay dhex galaysa bashaashatuhu bashaashadiisa iyo farxadiisa inshiraaxiisa alquluuba qulubta markay dhex gasha waa sidaas ma soo noqonaysa qofka mar hore jahaale iyo shahawaad iyo balaayu daba socda laakiin markuu iimaanka dhidhimiyo oo qulubtiisa iimaanka gala markaas gala oo iimaankii qalbigiisa ku sharaxma dib damba uma soo noqonayo faman sharaxa allahu sadrahu lilislaami fahuwa calىa nuurin min rabbih sidaasoo kale way waman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam marka bashaashada iimaanka qofka hadday qulubtiisa dhex gasha waa caynkaas dib damba uma soo noqonayo yihi. ayib wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yaqdiru ballanta ma buriyaan fadakarta waxaad sheegtay allah inaasan burinaynin. abu sufyaan ballanta ma buriya kaamile ma dhihin wax kaloo ku dhex qasi soomaya hadal buu geliyey meel kale wax kaloo hadal geliyey waa wey buu yiri marka laakiin tan hadal buu geliyey shakigii uu abu sufyaan geliyey hiraqle waxba kama soo qaadin waa inay waxba waa arkaan inay waxba aheen oo ballan ninkaan aasan burinaynin waa arkaan. hal yaqdiru ma buriyaa ballanta fadakarta waxaad sheegtay allah inaasan ballan burinaynin wakadalika arusulu rususha caynkaas weye laa taqdiru ballan ma burisa
waa su-aasha sagaalaad. wasa'altuka waxaan ku weydiiyey bimaada ya'murukum fadakarta waxaad sheegtay annahu ya'murukum inuu idin faraayo an tacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shay-an inaad alle keligiis caabudaan os cid kale la wadaajinin cibaadada. wayanhaakum inuu idinka reebayo can cibaadati alawthaani sanamyaalka wixii cibaadadooda inuu idinka reebayo. waya'murukum inuu idin faraayo biالsalaati waالsidqi wاlcafaafi waxaasoo dhan inuu idin faraayo. fain kaana hadduu yahay maa taquulu xaqan warkaad ii sheegtay hadduu run yahay. fain kaana hadduu yahay maa taquulu hadalka aad sheegaysa xaqan run xaqiiqa hadduu yahay fasayamliku wuxuu milkin doonaa mawdica qadamaya haatayni meeshaan aan taagna bayt almaqdis uu milkin doonaa. mulkiga ummadda nabiga sal allahu alayh wasalam bilaadu shaam. yani waa xadiid badan baa ku soo aroortay mar badanna mulkiga islaamka uu ahay halkaas iyo saldhigiisa. marka meesha aan taagnahay waa milkin doonaa mulkigiisa halkaan uu soo gaari doonaa buu yiri. saas sheegada xaqiiqata. fain kaana maa taquulu xaqan fasayamliku waa milkin doonaa mawdica qadamaya meesha aan taagnahay haatayni oo kuwana. waqad kuntu waxaan ahay yaqiin buu qabaa marka ninkan inuu waxaas nabi maxamed inuu rasuul ilaahiya calayhi الsalaatu wasalaam. waqad kuntu waxaan ahay aclamu kii og annahu khaarijun inuu soo baxayo oo waktigiisa la joogo waan ogaay buu yihi. lam akun ma sii aheen adunnu kii umalaynaya annahu minkum laakiin carabtan oo jilaafta oo reebaadiyaha oo acraabta laga soo bixin doona ma islahayn buu yihi. maarata in lasoo bixin doono waanba ogaa laakiin in adinka lainka soo bixinaya ma ogeen. waa isla dhasheen mogta qoladan ruum iyo yahuudi iyo carabti waa isla wada dhasheen. oo carab waxaa dhalay maxaa la yidhahaa maxaa la yidhahaa ismaaciil ibn ibraahim baa dhalay soo ma. israa'iilna yaa dhalay isxaaq ibn ibraahim baa dhalay. isxaaq weliba waxaas dhalay yacquubaas dhalay. yacquub wey israa'iil la sheegay. ruumna waxaa dhalay cays ibn isxaaq yaa dhalay. marka waa isla dhasheen oo habeen ay isa sii xigaan israa'iil iyo qolada ruum hal habeen ay isa sii xigaan. lam akun ma ahayn buu yihi adunnu kii umalaynaya annahu minkum inuu idinka in kamid ahaani doono. falow annii aclamu haddaan ogaan lahaa annii akhlusu inaan gaarayo ilayhi asaga inaan gaari karaayo. akhlusu ilayhi bimacnaa asilu ilayhi way inaan gaari karaayo. latajashamtu waan isku kalifi lahay liqaahu la kulankiisa laakiin si aan ku gaari kala mari waayo. maxaa jira wuxuu ogyahay hadda ma sheegayo xaqiiqada laakiin dadkayga ay dilayin waayo meelaan u maraba mali iimaan liigama dhegeysanaya maxaa liin in asaga aadana liima saamaxaya marka ma gaari karaya. laakiin haddaan inaan gaara ii suurageli waan u tegi lahay buu yihi. latajashamtu liqaahu la kulankiisaan isku dhibi lahaa. walow kuntu cindahu agtiisa haddaan joogi lahaa lagasaltu waxaan dhaqi lahay can qadamihi gamadiisaan dhaqi lahay lugahaan u dhaqi lahay buu yihi. maarata haddaan la joogi lahay lugahaan u dhaqi lahaa. ilma adeertiisi way kuwa meesha fafadhiya. ilma adeertiisi dadka u dhow oo qaraabadiisi xigtada dadka ahlu khayrka mara badan inay ka faa'iideysanin way badanta. yani dadkaas meesha fog jiray ayaa arkayeen oo xaqiiqada arkayeen. lagasaltu waan dhaqi lahay can qadamihi gamadaan u dhaqi lahaa. huma dacaa hiraqla wuxuu u yeeray bikitaabi rasuuli illah rasuulka alle kitaabkii uu soo diray ayuu u yeeray salى اllahu alayhi wasalam. aladii kitaabkii bacatha bihi uu la soo diray dixya uu la soo bixiyey ilaa cadiimi busra ninkii u weynaa. busra ninkii u weynaay. busra waa meel dimashqa agteeda ah qolada khasaasinadii iyo boqortooyo saldhigoodii waye. marka meesha ninkii u weynaay oo boqortooyadoodii risaaladii nabiga soo diray oo inaas hiraq la gaarsiiye usii faray ayaa kitaabkii baas u yeedhi. fadafacahu ilaa hiraqla kitaabka hiraqla u dhiibi. faqara'ahu waa akriyey tarjamaanka dabcan u akrinaya. faidaa fiihi kitaabki waxaa ku qoran kitaabka nabiga diri waa kan marka sal اlه alيه wasalam. bismi اllahi الرaحmn الرaحيم min muxamedi cabd الlahi وrasuulih ilى hiraqla cadiimi الrum salaam عlى man itabaca الhudى ama bacdu fainii adcuuka bidicaayaة الإسlaam aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawalayta faina calayka إثma الأriisiyiin ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رسالة هذه القراية سيدة سنة way kala yihiin qofka khudbo akrinaya iyo risaalo la qoraayo. risaalada la qoraayo bismi illaahi الرaحmaan الرaحيim
waxaa sida wanaagsan oo sunnada ahna waa in qofka risaalada qoraya magaciisa uu ku bilaabo inkastoo qaarka kibraya ay jiraan oo madax iyo waxaasoo kale markaa u diraysa laga yaaba inuu madaxa kor u taagan magacaaga inaad isku bilaawdaba waa iska dhib badan yihiin ayib nabiga magaciisana waa ku bilaabi addoon ilahi iyo rasuul ilahi inuu yahayna waa sheegay risaaladii ay ku socotaa hiraqla waa shaksigiisii boqorka magaciisa meliki ruum ma dhihin nabiga sal alla alay slam cadiimi ruum buu yihi maarata liannahu mulkigiisa xugun ahaan sharcan uma jira maadaama islaamka u imaaday sharciga boqortooyada waa ninkiisu sharciga u dhiiba markaas laakiin asaga dariiqo sharci oo isku haysta mali boqortooyadiisa xugun sharci ma lihin marka laakiin haddana sharafti kama dhartirini ninkii u weynay ruum buu yihi nabiga sal alla alay slam belig ma dhihin laakiin cadiim ruum buu yihi ninkii u weynay ruum ilaa hiraqla cadiimi ruum salaamu calaa man itabaca alhudaa salaantii waa ku bilaabay laakiin salaanta waa salaamay salaan oo aan anfacaynin ilaa inuu soo islaama moogay salaantina way taalla idhabaa ilaa fircawn ina faqula lahu qawla layina lacalahu yatadakar aw yakshaa qaala wsalaamu calaa man itabaca alhudaa soo sidaas mahayn waa muusa iyo walaalkii oo haaruun fircawn markay la kulmaayeen sidaa ayay ku yidhaheen waxay kusii dareen weliba ina qad uxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawallaa tii oo kale way marka salaamu calaa man itabaca alhudaa jidka xaqa ninkii raaca nabadgelyo korkiisa ha ahaato marka qof aan muslim ahayn haddaad risaalo u diraysa salaanta la salaamaya maxay tahay ma assalaamu calaykum as leeda gaalka maya salaamu calaa man itabaca alhudaa haddaad jidka xaqa raacda amaa bacdu intaas kadibna fa inii adcuuka waan kuu yeerayaa bidacaayati alislaami ay islaamka dacwadiisii baan kuu yeerayaa islaamkaan kugu yeeraan weye aslim taslam soo islaam waa nabadgelaysaa hiraqla waa cabsaday waan arki doonaa naftiisa waa cabsaday hadduu soo islaami lahay kelimadan adduunya akhira ay kulminaysaa aslim macnaha maxaa ku xiga yacni ficilka mudaarica ah oo majzuumka bacda alamr ficlu shardi a meesha u qadaran soo sidaas ma macnaha fa in aslamta salimta sidaas oo kale aslim taslam aslim soo islaam taslam yu'tika allahu allana waa ku siinaya ajraka ajarkaaga haddaad soo islaamta maratayn laba mar maxaa jira adiga waad soo islaamtay oo islaamnimadaadi ajar waa lagaa siin adiga nin hogaamiye oo lagu dayan baatay dadkii kugu soo daydeen ajarkoodina waa leeda marka haddaad soo islaamta maadaama ninkii boqorka ay aa tahay waxaa way ajarkaada laba maraas leeda aslim taslam yu'tika allahu alla waa ku siinaya ajraka maratayn inkastoo qur-aanka ilaahay ulaaika utowna ajrahum ahlu kitaabki oo soo islaameen oo diintooda wanaagsaneed oo mar horena wanaagsaneed haddana soo islaameen ilaahay u leeyahy ulaaika utowna ajrahum maratayn bima sabaruu laakiin markay yidheen annaga haddaan soo islaanana laba ajaraan leena haddaan soo islaamin hal ajaraan leena markay yidheen allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha aayat suurat alxadiid aakhirkeeda yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waaminuu birasuuli yu'tikum kiflayni min raxmatihi waa mu'miniintii ma ogaate yu'tikum kiflayni wayajcal lakum nuura tamshuuna bihi cilmi iyo fatxi iyo maaratay inshiraax tamshuuna bihi wayagfir lakum wallahu du lfadli alcadiim wallahu gafuuru raxiim maxaa jira lianlaa yaclam ha ogaadeen ahlu kitaab anlaa yaqdiruuna calaa shayin min fadli illah wa ana alfadla yu'tiihi man yasha ana alfadla biyadi illah yu'tiihi man yashaa marka qofka muslimka oo mu'minka haddaad soo wanaagsanaada sidaasuu ilaahay u ballan qaaday yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waaminuu birasuuli yu'tikum kifla laba mar baa liin laabaya adigana waa sida oo kale almuhim aslim yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawallayta haddaasi jeesata oo islaamnimada diida fa ina calayka korkaaga waxaa ah ithma alariisiyiina dadka cumalada oo fallaaxiinta oo dhulka kula jooga dembigooda korkaaga way ee hogaankooda adiga way adiga haddaad gaalnimo qaadatay adiga kugu raacaan dembigoodana dushaa lagu saari macnaha laba dembiyo isla leeyahy dembigii oo islaamka ka jeestay dadkii oo islaamnimadii ka hor istaagay oo isaga daba kaceen oo islaamnimadii aas ka hor istaagin labadan dambiyaas leedahay wey marka walaa taziru waasiratu wisra ukraa soo ma jirto miyay khilaafsantaha arrintaas
ma khilaafsano ninkan asagii waa dambaabay dembigiisi buu leeyahy dadkiina islaamnimadiiba ka hortaagee waddo kalaas mari ma arkaysaan sidaa darteedu haddana dembigoodina maadaama uu dadki ka hor istaagin liannahu ilaha qur'anka markuu ku leeyahy waqaala aladiina kafaruu itabicuu sabiilana walnaxmil khadaayaakum wma hm bxaamiliina min khadaayahum min shayin inahum lakaadibuun walayaxmiluna ahqaalahum wa ahqaala maca ahqaalihim marka wixii ay galeen dembiga ay samaysteen iyo dadkii ay diintii ka hor istaageen dunuubtoodii labadaba way leeyihin kanna waa sidii oo kale haddaad soo islaantana iimaanka ay islaamnimada aad qaadatay iyo dadkii kuga ay daydeen ajarkoodii labadaba waa leeda haddaad diinta ka leexatoo diidana dembigaagii gaalnimadii iyo dadkii aad diinta ka hor istaagtay labadaba dembigoodaas leeda fa in tawallayta haddaad jeesato diinta ka jeesato islaamnimada ka jeesato fa ina calayka korkaada ayay ahaatay ithma alariisiyiin ariisiyiinta fallaaxiinta unbaa ugu fiican in lagu fasiran dadkii oo beerafalatada iyo dadka racyadaada danuubtoodii wey ayadan buu nabigu u qoray sal allahu alay wasalam ayad qur'aana yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin war dadkaad ahlu kitaab hiraqla ahlu kitaab miyuu ahaa meeshan culamadeena qaar sidii madhabka mashhuurka ah imaam shaafici ma aqaan inay qowlkiisa tahay waxa mashhuurka ah qofka ahlu kitaab marka xukunka ahlu kitaab loo sugayo aabayaalkii waa inay galeen qabla anaskhi watabdiil inay diinta galeen kitaabka oo kiristaannimada ama yahuudinimada hiraqle iyo dadkiisana waxaa la ogyahay kiristaannimadii oo kharibanti bay galeen qoladan reer yurub waa la ogyahay ahlu kitaab nabiga wamaca dalika nabiga muxuu usugay ahlu kitaab inuu yahay wayaa ahla alkitaabi ilan hiraqle usoo qoray sooma risaalada ayuu usugay marka arrintaa maxaa la yidhaha xujo weyn inay haysanaa la arkaa qabla naskhi watabdiil inay galeen inay shardi aheen ayaa muuqata meesha yaa ahla alkitaabi dadkaas kitaabka ilaahay siiyow oo kiristaanka ahow yahuudina waa un lamid tacaalow ilaa u imaada kelimada maku kala duwan ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum maxay tahay waa kelimada tawxiidka an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a inaan alla cibaadadiis cid la wadaajinin walaa yatakida bacduna bacdan arbaaba qaarkeen qaarka kale inaas rabbi ka dhiganin itakaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban inaan rabbi iska dhiganin annaga dadkan wanaag iyo khayr baa ka dhexeeya laakiin qof inta rabbi laga dhigta wixiis xalaal ka dhiga la xalaaleynayo wixis xaaraan ka dhiga la xarimaayo ma jirto way qaarkeen qaarka kale in rabbiyaal ka dhiganin fa in tawallow haddaad jeesataanna ama hadday jeestaan faquuluu waxaad ku tirahaan ishhaduu markaati ka noqdo bianna musliman annaga inaan ilaahay u hoggaansanay saasaa loo soo qoray qaala abu sufyaan wuxuu yihi abu sufyaan risaaladii baa la akriy horta keenuu yihi risaaladii hiraqle waa la akriy risaaladii waata falamaa qaala maa qaala hiraqle markuu hadalkii ku hadlay haddaan agtiisii inuu nabi soo baxayo waana waaye nabi ilaahay soo baxayo in idinka inka soo baxayo ma ogeen lugahan u dhaqi lahay haddaan gaari kale waa gaari lahay markuu yihi oo wa faraqa uu dhameeyey min qiraa'ati alkitaabi kitaabkiina uu akriyey oo la fasiray kahura cindahu sakhabu buuqaa dhacay marka agtiisa baytulmaqdis uu joogaa madaxtooyadiisuu fadhiyaa dabcan caasimadiisa waa xims iyadana wax si ka dhacay waan arki doonaa marka hadda baytulmaqdis uu joogay iyo majliskii uu fadhiyay guriga madaxtooyada u fadhi cirkay qayli isla qabatay marka qaala abu sufyaan falamaa qaala markuu yihi hiraqla maa qaala wuxuu yihi oo wafaraqa uu dhamaasho tiray min qiraa'ati alkitaabi kitaabka akrintiisii risaaladii nabiga sal allau alay wasalam kahura cindahu sakhabu qayladii baa badatay wairtafacat ilaswaatu codadkii baa isku dardarmeen oo kor u kaceen wa ukhrijnaa waa nala bixi agigaaba isku buuqeeni waana la saari buu yihi meeshaa nagala saari marka faqultu waxaan idhi buu yihi liasxaabii asxaabtaydii baa waxaan ku yidhi xiina ukhrijnaa markii nala bixi laqad amira waxaa weynaaday ay caduma waxaa weynaaday amru bna abi kabsha abu kabsha wiilkiisii arrintiisa waa weynaatay yuu ku jeedaa abu sufyaan nabigeenu ku jeedaa sala allahu alayh wasalam ibna abi kabsha maxay leeyihiin maxaa la yidhahaa xaliimata sacdiya ninkeedii abayaalkiis mid kamid miya abu kabsha la dhihi jiray misi maxaa la yidhaha maxay ula jeedaan waa tacyiir oy nabiga ku ceebeyn jireen waxay ahayd ba ha ahaata nabigun buu ula jeedaa sala allahu alay wasalam arrintiisa way weynaatay buu yihi meeshan waxaa yidhi buu yihi laqad amira waxaa weynaaday amru ibna abi kabsha abu kabsha wiilkiisii
arrintiisa waa weynaatay inahu yakhaafuhu waxaa maanta ka cabsanaya maliku bani lasfar banulasfar boqorkoodii a maanta ka cabsanaya. banulasfar waxay dhihi jireen qoladan yurubka iyo ruum oo dhan ayay dhihi jireen banulasfar. carabta waxaad moodaa mar walba way ka dambeeyeen qolyahan, si un bay maaragtay maanta heerka asaga ay marayin in dad diin lo diintooda sugunta la helo maayin weligood waa un ma aqaana aynu tacdiim bay weydiin. marka banulasfar oo la garanayo boqortooyadii quwadooda la garanayo maanta ka baqaysa arrin khadiir wayuu yihi maarata sidaasaan iri buu yihi. famaa ziltu kama zuulin buu yihi abu sufyaan muuqinan inaan yaqiininayon hubo annahu sayadharu nabiga ilaahay amarkiisa inuu daahiri doono. abu sufyaan waa gaal marka iyada. xataa adkhala allahu ilaa uu alla ka soo geliyay calaya aniga korkayga alislaam islaamnimada inta ilaa ilaahay iga soo geliyay oon ka soo islaama waxaa waaye arrintayda waa weynaatay yacni waa yaqiinaan qabay macnaha ina nabiga ilaahay diintiisa ilaahay daahirin doono. abu sufyaan haddee habeenka maka la furan doono maalinka subaxda maka la furan doono habeenkeeda horo asagoo un meelaha kaali soo indhayle oo socdo waa kii cabaas uu dhexda ugu soo dhaco la soo orday oo soo qaado nabiga u keenay sala allahu alayh wasalam. sheekadiisa waa dheerid. xataa adkhala allahu calaya alislaam ilaa islaamka ilaahay korkayga iiga soo geliyey. wuxuu leeyahy marka ibn shihaab weye wakana ibnu naaduur wax dhahay wakana ibnu naaduur ninkaa la yidhaah ibnu naaduur saaxibu iliya beyt almaqdes xaakimkeeda ahay iyo hiraqla saaxibu hiraqlana saaxiibkiisa ahay saqufan asquf buu ahay calaa nasaara shaam nasaaradeeda oo dhan uu madax u ahay. yacni wuxuu leeyahy asqufka waxaa la yidhahaa ninka ra-iiska diiniga ah oo kirishtaanka ayaa la dhihi jiray asquf. marka wuxuu leeyahy ninka ibnu naaduur la yidhaah oo beyt almaqdesna markaas xukumay hiraqlana saaxiibkiisa ahay beyt almaqdesna uu u dhiibtay nasaara shaam oo dhan kirishtaanka shaam joog oo dhan shaam bilaadu shaam waa bilaad waasica daraf ciraaqa soo geli urdun qaybo inteeda badanaa soo geli falastiin maxaa la yidhaha suuriyada aad maqlaysaan dhulkaas oo dhan waa bilaadu shaam. yacni waxaa weeye nasaara shaam ninka madaxda u aasahay marka ra-iiskooda diinigaas ahay. ayib wa kaana ibnu naaduur wuxuu ahay saaxibu iliya saaxiibkeeda ahay waa hiraqlana saaxiibkiisa ahay suqufan usquf buu ahay calaa nasaara calaa nasaara shaam kirishtaankeedaas madax ku ahay. ninkaas asaga wuxuu ahay yuxadiثu kii ka sheekeeya ana hiraqla xiina qadima iliya beyt almaqdis markuu soo galay asbaxa inuu ahaaday yowman maalin khabiiثa nafs. marka ninkan zuhri baa mar damba la kulmay miya mise saasaad moodaa sidaas uu leeyahay xaafid ibnu mazuhri ba mise ibn cabaas laftiisa zuhri inaas yahay wa kaana inuu zuhri yahay ayaad moodaa. almuhim wuxuu leeyahay ninkan oo ibnu naaduurka nasaara najraan baad ra-iiskooda diiniga ahay waana soo islaami doonaa markii dambe. hiraqlana saaxib baa marka sababta ay arrintan ku dhacday buu sheegaan. yuxadiثu wuxuu ka sheekeyn jiray ana hiraqla xiina qadima iliya markuu soo galay asbaxa wuxuu ahaaday yowman maalin khabiiثa nafsi mid naftiisa xunta oo murgeysan. faqaala bacdu badaariqadiisi dadkii wadaadadii gaararka ka joogeen ee madaxdii diinta oo gaararka la joogeen waxay yidheen qad istankarnaa waan inkirnay hay-ataka sifadaada waan inkirnay murg baa kaa moqotay niya waa sidee. qaala ibnu naaduur wuxuu yihi wa kaana hiraqlu wuxuu ahay hiraqlo xazaa'an munajim yanduru fi nujuumi xidigaha fiiriya. xazaa waa ninka xidigaha garanaya xidiga meeshaas hadaas fadhiya waxaas wey cilmu nujuum barashadee nabiga sal alla alay wasalam wixii aan jihooyinka lagu aqoonsanayn iyo qibladan nabiga sal alla alay wasalam waa xarimo waa cilmu sixir buu yihi. laakiin waxaa lagu aqoonsanaa wabinajmi hum yahtaduun. marka nujuumta waxa weeye waa saddex shay unbuu ilaahay u sameeyey buu leeyahay ninkii taabiciga ahay waa saddexda qur-aanka lagu sheegay rujuuma lishayaadiin ziinata liلsamaa walaqad zayana الsamaء addunya bimasaabiixa ziinata liلsamaa warajma lishayaadiin
وبالنجم يعني هداية ولقوها نوناية جهادي ميلا كاجر تما قرنيسد قبل ذي باسكو قرني مراكب تابين كسع دومها سعوطة وحبا ما لو كلا قرنا مركا وحن كيهين برشد وضع النبي وحرمي صلى الله عليه وسلم وحوها حزاء مدح دقاها فيري ينظر فيري في النجوم فقال اللهم وحو كجري ضدك بطارقدي حين سألوه مركا سؤالين إني رأيت الليلة حالي وحن ركي حين نظرت في النجوم حدقها مركان فيريهي ملك الختان أما ملك الختان لبضا والله كران ختان كي ملكيسي بقر كيسي أما بقر تويديسي قد ظهر إنو سو ظاهري تنن أركيبو يري فمن قف كيبا هرقلا سؤاشان وتمرك قف كيبا يختتن إسقوداي من هذه الأمة تتكان نلجوغو أدونك جوغو حديبا إسقودو يري قالوا دادكيسي وحيكو يريهم بطارقدي ليس يختتن اسم قدن إلا اليهود وحن يهود هنا إسقودو مجران ما ينقرر من عرب إنا إسقودان فلا يهمنك شأنهم أرنتو ذا كمرقن بيري أي مرقو قبنن فلا يهمنك إياكم مرجن شأنهم أرنتو ذا واكتب قر إلى مدائن ملكك بقرتو هذا بلاد هذا ورغد أقر فيقتلوا هاد لينا من فيهم من اليهود وحجوا يهود هلا يعني تني مانك هسأل الله ينا بلا الله قردين حتى الله رباسول الله فساد كود نيك أرجعوا إنه الله بلاد هذه بقرتو هذا ضدك كنا ولا يهود هلا الله يير طيب فيقتلوا هاد لينا من فيهم ضدك دح جوغانو من اليهود يهودا سيدان أيها شيئين لكن كم تلا بقادين فبينما هم على أمرهم أيها سيدي كجوغان فبينما وقت هم أيها بضارقدي هرقل على أمرهم سيدوذن أيها كجوغان أتي هرقل وحا الله كيني برجل نين أرسل به وصادر ملك غسان ملك هذا وصادري كاسو يخبر كورمايا عن خبر رسول الله رسول الله إيسو بحدي سقف كورمايا أي الله كيني ونك رسالة ودي نبى الله كين فلما استخبره هرقل مركو وريستنينك قال هرقل وحو يري اذهبوا لتقى فانظروا في ريا أمختتن هو أم لا إن اسقدين قال قعنصوا في ريا أخلاق حموي أمختتن مثل اسقديمية هو سقى أم لا فنظروا إليه ويسوفيرين فحدثوه وحيوشيغين أنه مختتن إنه اسقدين وسأله وحو ويديي عن العرب عرب ويديي ميسقدين فقال وحو يرهم يختتنون ميسقدين فقال وحو يرهم عرب وكويديي معنى عرب ميسقدان باليرين فقال وحو يرنينك هم يختتنون ويسقدين عرب ويسقدن طيب يروا يسقدن فقال هرقل وحو يري هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ومدار ملك جائزة ظاهري ملك الختان كإمادي وكاس بيجري وضد كاس إسقدايين والنبي محمد هي دولة ديسان هي مارة الدين تيسا ويحصوا بحي بيجر ملك هذه الأمة ويجري قد ظهر ثم كتب هرقل واقر إلى صاحب له صاحب كيسا برومية مقالة رومية الليرة صاحب كيسا وجوغي أياس ورقد قري وكان صاحب كاسنا وحو هاي نذيره أسقى في الكيس في العلم حق علمي إننا أسقى دقيساس هاي وأسقى لقياس أقونت والإسقرنا هذه إن كان بقولك أسابق قرطويد هايستان محل يرها ضدك أقونت له وأسقى مستويسان وقرنا يا كتب هرقل واقر إلى صاحب له صاحب لهاي وبرومية ماشي رومية اللي يرها جوهم بلاد الشام أي مركز كمية أياس ورقد وقري وكان نكاسنا وحو هاي نذيره أسقى دقيس في العلم حق علمك وسار هرقل وابحي وصعدي إلى حمص وبحي نكاسنا ورقد وقري حمص وآذي فلم يرم كمزول حمص كمزول حمص وعاصمة ديسي حتى أتاه أبو عبيدة فري حمص أبو عبيدة بن الجراح هيا فري مقال داس حمص وقت قاسني إذا دمشق كويناد فلم يرم كمزول حمص حتى أتاه إلى أسكاقي ماذا كتاب من صاحب كيس الرومية جوغي وحق علمي كان أساق ديكيس هاي ورقضة سوقري أساق ورقضة سوقري والسؤال ويديناي وأرمان وكويديناي أساق جوابه سوقري
xataa ataahu kitaabun ilaa as kitaab ugu imaaday hiraqla min saaxibi saaxiibkiisa ruumiya jooga ilaa as warqad usoo qori ay kaga imaada kaaso kitaabkaasoo yuwaafiqu waafaqaya ra'ya hiraqla ra'yigiisa waafaqaya calaa khuruuji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nabiga soo bixidiisa waafaqaya ku waafaqaya wa anahu nabiyun inuu nabi ilaahay yahayna waafaqaayo oo ku waafaqsan tan waxay ahayd arrintii uu imaaday hiraqla ximsuu tagay ximsuu ku nagaaday saaxiibkiisuu warqad u diray oo ruumiya jooga arrimahaas bal jawaab ni hawshay kula tahay buu yihi warqaduu usoo qoray oo isleeyihin inuu nabi maxamed nabi ilaahay yahay mulkigoodina uu daahiray sidii asaga wax u arkay buu kusoo waafaqay usoo diri wa anahu nabiyun faadina hiraqlo waa idmay macnaha waa un dacwo oo kalo licudamaaءi الruumi ruum madaxdeedii buu u yeeri fii daskaratin lahu bxims daskaradiisii guriga boqortooy state houseki wey waxa weye maaragtay gurigii madaxtooyadii ama white houseka waxaa tidhaaba guriga boqortooyadii oo xims ugu yeelay caasimadiisii baytulmaqdes markaa jooga waa un gobol ay ahayd ayaas ugu yeeray madaxdii ruum faadina hiraqla waa uu idmay licudamaaءi الruumi ruum madaxdoodii fii daskaratin lahu daskara oo bixims ku taal daskarada asaga uu leeyahay asaga wuxuu sameynaa boqorka meel koruu fadhiyaa oona muxasana dadka kale oo baarlamaankiisa iyo dadka la taliyayaalkiisana oo madaxdiisi iyo wasaaradiisi iyo culamadiisi iyo khubaradiisana meel hoosay leeyihiin ninkan adaa cid gaari karta oo wax gaarsiin kartana ma jirto meel daskarada waa meel noocaas oo kale u xiran waana meel xiran oo korka xiran oo la waaridaynay fii daskaratin lahu bxims huma amara waa faray biabwaabiha iridaheedii buu faray fagulliqad waa la xiray meeshii guriga boqortooyadii waa la xiray irdaha lasoo xiru yiri amara biabwaabiha iridaheedii buu faray fagulliqad waa la xiray huma dalaca waa soo baxay marka dadkii uu soo baxay waa un tvga hadda sida looga soo baxo o kale tv ma jirin waagaasi marka dadkii buu usoo daahiray marka meeshiisi kor uu saaray isaga wax soo gaari kara ma jiraan mana bixi karaanoo iridaha waa laga xiro o ciidama la dhigay huma dalaca waa usoo daahiray faqaala wuxuu yihi yaa macshar aruum ruum madaxdeedii dadkeediiyow reer ruumow hal lakum ma dooneysaan fi lfalaaxi liibaan ma dooneysaan iyo warushdi liibaan wa an yahbuta mulkukum mulkigiina inuu sugnaado ma dooneysaan oo fatubaayicuu as ballan la gashaan hada nabiya nabigan beeco la gashaan balaayaas ridi marka boqortooyadiisii iyo madaxdiisii iyo wasaaradiisii iyo culamadiisii iyo raggiisii buu iskugu yeeray si ay dadkan ugu kala cararin ninkan waa khatiir siyaasi khatara wey su-aalihii abu sufyaan warinay baa iska dareemi haddana noocyada uu dadkan ula dhaqmayo inay dadkan bixin ee isku talagalay waana kulmiyey asagana meel muxasan uu ka galay waana usoo baxo waa la hadla wuxuu yihi mulkigiina inuu sugnaado ma dooneysaan oos nabigan beeco la gashaan ballan la gashaan hal lakum fi lfalaaxi warushdi liibaan falaax iyo rushdi waa isu macno dhow yihiin yani waxaa weye annajaatu mima takhaaf walfawzu bima turiid wa an yahbuta mulkukum mulkigiina inuu sugnaado ma dooneysaan oo fatubaayicuu as beeco la gashaan ballan la gashaan hada nabiya nabigan as ballan la gashaan faxaasuu way carareen xaysata xumuri lwaxshi dameer waxshiga saas u cararay u kala fiigeen elbaab iridahay u kala carareen waxaas ilaalinaya iridaha loo xirin waa intaas dadkan hadday kala fiigaan yaa usoo yeeray oo soo kari kara waaridaas iridaha dhigtay ciidamadiisu iridaha dhigay iridihiina waa ka xiray hadday cararaan inayan ka bixin darteed iridahay u kala carareen marka iridaha inay fur yihiin umalaynayeen faxaasuu way carareen xaysata xumri lwaxshi dameer waxshiga sidaas u carara ayaa u carareen ilal abwaabi iridahay u kala carareen fawajaduuha waxay heleen qad gulliqad iyadoo la xiri irdihoo xiran ay tageen falamaa ra'aa markaas arkay hiraql nafratahum cararkoodii oo wa ayasa uu ka quustay min aliimaani inay soo rumeeyaan oo diinta ilaahay soo raacaan markuu ka quustay oos cararkoodii arkay qaala wuxuu yihi rudduuhum calaya ii soo celiya dadka hay ii imaadeen igu soo celiya mulkigiisuu ilaashanayaan ii keenuu yihi dadka wax kala soo baxeen wa qaala wuxuu yihi hiraql inii qultu maqaalatii aanifan hadalkaan inkula hadlay mar dhow waa in la hadlay akhtabiru biha waxaan ku imtixaanay shidatakum sidaas uga adagtihiin calaa diinikum diintiina sidaas u haysatiin fiirinay hadalkaan hadda ayta ku hadlay hadal dhabiga ah ma ahayn adinkaan idin imtixaanay
warkaan ha isoo gaari nabigaan iyo waxaan la sheegaya isoo gaartay inaad dad diintooda haysta tihiin inaad diintiina inka fududda agtiina ku fududdahay ayaan kala fiirinayay. wuxuu yidhi inii qultu waan idhi maqaalatii hadalkayga aanifan goor dhow akhtabiru anugu imtixaanayo akhtabiru xaalaan imtixaanaye bihaa kelimadaas shiddatakum shiddadiina adeegiina calaa diinikum diintiina isku adagtihiin baan idinku imtixaanay. faqad ra'aytu waan arkay diinta ilaahay diintiina saas u haysatiin oos ugu adag tihiin rag diintooda aan ka degayn inaad tihiin waa idin arkay. fasajaduu lahu way u sujuudeen hal mar ay sujuudu daateen waradow canhu way ka raali noqdeen asagana way u sujuudeen waana ka raali noqdeen. fakaana dalika kaas waxaas ay aakhira sha'ni hiraqla hiraqla arrintiisa meesha ugu dambeysay oon diin ahaantiisa macnaha gaalnimo ku dhintay way. allahu aclam hadday niyadiisa wax ku jireen oo wax un hoos ahaan kasoo islaam ilaahay baa garanaya laakiin waxaa sugan ilaa waayihii damba tabuug iyo maxaa la yidhahaa mu'ta iyo inuu dagaalada abaabulay iyo ciidamadiisa wuxuu diyaarinay wax taariikhda la ogyahay way. laakiin arrintiisa xagga diin ahaan bal xataa riwaayaadka qaar waxaa ku imaaday inuu risaalo nabigu soo diri u leeyahay muslim maa nahay oos nabigi leeyahy sal alla alay wasalam kadiba hada alkaafir huwa calaa nasraaniyatihi kaafirkan been buu sheegaa nasraaniyadiisuu ku sugan yahay nabiga waa loo sheegay waman yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa. marka way u sujuudeen adduunyadiisuu ka doorbiday waxaa la yidhi aakhiradiisa waradow canhu way ka raali noqdeen. fakaana dalika kaas wuxuu ahay aakhira sha'ni hiraqla. rawaahu xadiidkan waxaa wariyey saalix ibnu kaysaan wa yunus ibnu yaziid wa macmar can zuhri inta way ka wariyeen. saalix ibnu kaysaan ma in ragga kale waan soo marnay. saalix ibnu kaysaan zuhri waa ka weynaya xagga da ahaan aad buu ugu weynaya isagoo weynuuna dalabulcilmiga bilaabay marka aad buu zuhri ugu weyn yahay haddana zuhri buu aad ugu wariyaa cilmiga xagga dabaqadiisina waa lagu tiriyaa oo zuhri iyo dabaqadooda waa lagu tiriyaa imaam xaafida wey. marka raggaas ayaa wariyeen. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.